dhowr sano oo maamulka dekada Muqdisho ay hayeen hay'ada caalamiga iyo markii ugu horeysay waxa laga soo saaray haraadiga maraakiib ku burburay dekada kuwa oo suurtagal ka dhigi waayay in maraakiib waaweyn ay dekada ku soo xirtaan. Ibrahim Xaaji Yuusuf wariyaha RTN Muqdisho ayaa warbixintan dekada inooga soo diyaariyay. haraadiga gaadiidka badda oo qadiimi ah ayaa laga soo saarayaa biyaha hoostooda. quburo ayaa ku dadaalaya in mar kale la ballaariyo xaddiga dekada Muqdisho oo aanan dayactir buuxa helin muddo ka badan 20 sano oo dalka ay ka jiray nidaam dawladnimo. dhowr sano oo maamulka dekada ay hayeen hay'ada caalami ah waa markii ugu horeysay ee laga soo saaro haraadiga birooyin waaweyn kuwa oo suuragal ka dhigi waayay in maraakiibta waaweyn ay ku soo xirtaan dekada. madaxda shirkadda gacanta ku haysa dekada Muqdisho ayaa sheegaya in biyaha hoostooda ay ku jiraan qalfoofta gaadiidka badda muddo bil ahna ay ku weyneen doonaan ballaca ay lahayd dekada Muqdisho. Albayrak firması olarak 3 seneden beri Mogadishu limanını işletmekteyiz. 3 sano ayaan maamulaynaa dekada Muqdisho. Haddaanu nahay Albayk waxaan sare u qaadaynaa shaqada dekada. Artan yük kapasitesine paralel olarak muddo hadda laga joogo isbuuc ayaan bilownay qodida badda waan gaari doonaa xilli ay ku soo xirtaan maraakiib waaweyn annaga oo heshiis la galnay shirkado waaweyn oo ku hormaray hagaajinta dekada. yükseltilmesi için uzman bir firma ile anlaşmıştır. dekada Muqdisho waxa aslahaan la sameeyay waqti aad u horeeya taas oo taariikhaanadu ay ku sheegeen in dekadan ay jirtay waqtigii boqortooyada Roomaanka waxaana hadda aad ugu faa'iideysta ganacsada Soomaaliyeed oo suuqyada dunida ka keena shixnado kala duwan kuwaas oo hadda lagu baayaco suuqyada dalka. Ibrahim Xaaji Yuusuf, RTN TV, Muqdisho.